maanta sidaynu u fakaraynaa waa inay ka duwanaataa sidaanu u fakaraynay 1980 ama 1990. internetku wuxuu keenay caqabado waaweyn, social media wuxuu keenay caqabado waaweyn, dhanka kalena wuxuu keenay fursado. marka fursadaha oo aynan ka faa'iidaysan ayaa caqabad weyn inagu haya waqtigan maanta xaaliga matalan. bilaal baan intaan la booday baa wax weyn baan ka filayaa. de waxaa laga yaabaa in expectationkaasi anuu igu jiraa. adigu waxaad shaqo ood ku leedahay ma jirto. marka expectationkaygu marba kugu cabirayaa, marna samadaas baan ku geynayaa, marna dhulkan ku dhigayaa. marka expectationku inuu mid dabcan waaqiciya noqdo, xilkasnimana ay ku dheehan tahay. waalidkuna mar kasta ay kaalinta ay ku leeyihiin tacliinta ubadka waana ku baraarugsanaadaan. halkani waa meehaal podcast, waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah bilaal mustafe. muuqaalkeenan waxaa suuro geliyey Bile Daycare oo ah xarun lagu ababiyo aqoonta da'yarta ama dhallaanka. su-aasha badanaa ay bulshada isweydiiyaan waxa weeyaan, caruurtu markay yihiin da'da hal jirka ay 1 sano jiraan, waxbarasho ma geli karaan, wax ma baran karaan? jawaabta hadday haa tahay, waa maxay waxbarashada noocay tahay, halkay ka qaadanayaan? su-aalaha iyo su-aalo badanba waxaynu kaga dhex jawaabi doonaa meehaalkeenan maanta. martii inoogu yahay cabdiraxmaan sheekh xasan oo ah aasaasaha Bile Daycare. Bile Daycare waa xarun loogu talagalay si ay u ababiso caruurtu markay aadka u yaryar yihiin. haddaba ciwaanka barnaamijkeenuna wuxuu ahaan doonaa ababinta aqooneed ee caruurta. kasoo dhawaa cabdiraxmaan, meehal podcast. aad iyo aad baad u mahadsan tahay bilaal iyo tiimka meehaalba. waa dhowahay. insha allah waxaynu yeelan doonaa wada sheekaysi qiimo leh oo dadkana wax tara. insha allahu inaguna aanu kaga warano bal ababinta tacliineed ee caruurta yaryar. marka waa dhowahay bilaal. aad baad umahadsan tahay. haddii aanu ku bilaabnaba su-aasha ay dadku isweydiinayaan, imise jir ayay muhiim tahay ama macquul tahay in caruurta loogu bilaabo aqoonta? bismillahi raxmaan raxiim. sidaynu ogsoonnahay waxaa jira aragtiyo badan oo ku saabsan tacliinta caruurta ama waxbaridooda. matalan unesco waxay aaminsan tahay in waxbarashada caruurta ay ka bilaabato ama bilaadanku ay ka bilaabato maalinta ilmuhu dhasho. ay halkaa barbilowgu uu yahay maalinta ilmuhu dhasho inuu waxbaran karo. waxbarashada imika inagu aynu xoogga saaraynaa ee Bile Daycarena uu si gaara takhasus ugu leeyahay waxa weeye waxbarashada caruurta yaryar, gaar ahaan kuwa da-dooda u dhexayso 1 sano ilaa 8 sano, yani ku jir ilaa 8 jir. laakiin ilmuhu maalintuu dhasho ilaa inta uu magaranaysaa uu korayo, waxbarashadu waa wax markasta la socda. laakiin anaga waxaan xoogga saaraynaa tacliinta ilmaha inta uu ka yaryahay 8 jir. meelaha qaar waxaa xoogga la saaray inta uu ka yaryahay 5 jir ama 5 sano hore ee nolosha ilmaha. laakiin anaga waxaanu qaadanay methodologyga ama qeexitaanka unesco oo odhanaya early childhood educationka ama waxbarashada caruurta yaryari waa intay 8 jir ka yaryihiin. marka ilmaha tusaalahaan waxaa la bari karaa bilaawlo markuu dhashaba waxaa la bari karaa dhawaqii, waanu dhawaq maqlaa. waa inaga matalan uu sunnuhu yahay in dhegna lagaga aadimo, dhegna lagaga aqiimo. marka macnaheedu waxa weeye ilmihii markuu da-daa yahay eedaankii macnuu sameynaya, aqinkii macnuu sameynaya. inagana iminka caqabado waaweyn ayaa inaga haysta, gaar ahaan xilligan aynu nool nahay farsamada casriga ahayd ay meel kasta ay gashay in ilmihii uu helo human interaction, inuu helo waalid ama ayey ha noqoto ama awow ha noqdo ama hooyo ha noqotee
ilmihii early on la falgala oo la hadla la sheekaysta. iminka waxyaabaha aaladahan casriga ay soo kordhiyeenba ah matalan in ubadkii ay hadalkoo kale laydhaa uu ka raagay. ilmihii waa 3 jir ama waa 4 jir, mana hadlayo ereyadii, ma soo celinayo. marka sababaha anigu aan isleeyahay sabab badan baa jiri kara. matalan xaggii nafaqada iyo cuntooyinka carruurta ay cunayaan waa muhiim, waa in la eego. laakiin waxaa kaloo isna jiri karaa in aynan si togan uga faa'iidaysan moobiladii meel kasta yaalay. marka insha allahu inagoo furfuran doona barnaamijku oo inoo noqon doono barnaamij insha allah wax ku oola. waxaynu su-aashada haddaan kusoo dhawaado bilaalow, ilmaha waxaynu bari karnaa matalan dhawaqii inta uu yaryahay. waxaa la bari karaa matalan in muruqyadiisa ay shaqeeyaan, maskaxdiisii in ay raadeen waxa kule. waxyaabaha ugu badan in raadeenta kule waxaa ka mid ah ilmihii inuu shaybiskii iyo coloriskii barto, ama midabadii iyo qaababkii. matalan iminka qolkan aynu ku jirno kale waa fargees, in shaybiskii isagoo yar la baro, goobadii, coloriskii kala duwanaa, dhawaqii, iyo ilmuhu inuu early on inuu fahmi karo dareenka qofka. matalan facial expression uu soo celin karo, dareenkaagii uu fahmi karo. markaad matalan aad la hadasho isagoo dhawaqii aan weli afkee baran, haddana in maskaxdiisii ay tarjumi karto oo ay akhriyi karto dareenadii kala duwanaaye biniaadanka. marka inaha aynu bari karnaa, waana wax ka horeeya intaynan xuruuftii iyo nambaradii iyo intaynaan ilmihii aynaan u dhigin. waa inay midabadii uu barto, dhawaqii uu barto, uu kala duwanaado. ilmihii waxba yuu soo hadal soo celine. innaga inta badan degdeg aynugu badan oo waxaynu rabnaa in natiijo degdega markaba la gaadho. waqti bay qaadanaysaa, laakiin ilmihii lala sheekaysto intaa markaa uu record garaynayaa bilaalo. marka inaynu space hello. iminka waalid badan baa shaqeeya oo matalan hooyooyinkii in badan oo kamid way shaqo tagtaa. marka matalan waxaa laga yaabaa in ilmihii lagaga tago gurigii, inaan loo dhiibo, inantiina ay laga yaabo inay mobil iskaga gudubto. marka waxaynu u baahannahay in mobilka qudhiisa ay tahay in la xakameeyo oo la xadido, laakiin isla markaana loo isticmaalo aalad tacliimeed oo ilmihii uu wax ka faa'iido. waxaad ka dhawaajisay su-aal ahayd caruurta yaryari waxay isweydiiyaan waalidku sidee buu u hadli laayahay isagoo 5 jira. maxaa ugu weyn baad is odhan karaysaa ee caqabadda lagaga bixi karaa? xataa even mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu ilmuhu maanta taagan yahay arrinkaa maanta maxaa lagaga bixi karaa? sidoo kale bilowgiisana maxaa lagaga hortegi karaa? horta bilowgiisa waxaa lagaga hortegi karaa programka iminka aynu hayno oo ah ilmuhu haddii uu markuu gujir yahay, haddii aanay suuragal ahayn, waana adagta iminka waqtiyadan dambe in guriga wax lagu baro, in xarumaha tacliinta la keeno oo matalan isagoo gujiraba markaasuu socodka baranaya ama gurguranaya la dhex keeno carruur kaloo da-diisa iyo dad murabiyiina in la dhex keeno waa muhiim. waxa kale oo aynu matalan haddii ay dhacdo oo ilmihii hadalku ka raagana, adduunyada kale speech therapy baa loo sameeyaa, hadalka dib baa loo baraa. laakiin inagu halka aynu haynaa waxa weeye tusaale ahaan bilo daycare oo kale inaynu ku diyaarinay macalimiin takhasus u leh barbaarinta ubadka. marka ubadkii in aynu u abuurno horta kow space ama deegaan ay ku samayn karaan, ay kula kulmi karaan jiilkoodii, da-doodii. ilmuhuna haddii uu bilaalow helo ilmo kale oo dhigiisa ah oo uu interaction ama magaranaysaa uu la ciyaari karo, falgal la samayn karo, oo uu wax weydiin karo, isagoo qudhiisa su-aalihii kaga imanaya uu uga jawaabi karo. haddaynu spacekaas siino
wax badan ayuu ka tari karaa. waxaa kaloo iyana xala in waalidku ku baraarugsanaado. ilmaha haddii hadalku ka raago macnaheedu waxa weeye waxaa laga yaabaa in ay cillad weyniba iyadoo aan jirin in uu waalidku ka waayo ilmuhu waalidkii ka waayo falgelkii iyo maalan ciyaartii iyo tilmaamidii uu ilmuhu uga baahnaa waalidka. marka human interactionkaasi waa muhiim in uu yeesho. macalimiintuna waa inay ku baraarugsanaadaan in haddii ilmaha uu maalan hadalku ka raago ay tahay in qorshe gaara ama barnaamij gaara loo sameeyo oo ilmihii hadalkii lagaga soo saarayo. marka waa xaaladaha magaranaysaa kooban ee wax laga qaban karo ee aan u baahnayn takhasus caafimaad oo weyn. yani wax badan oo aynu inagu qaban karno oo ilmuhu inooga baahan yahay laga yaabaa inaynu ilduufno. maalan imika deegaanadeennii hore ee maalan miyigoo kale markaynu joognay ama magaaladu aanay imika sidan ahayn, waayo isbedel baaxad leh oo cilmi baaris fiican aan lagu samayn ayaa imika inagu socda. waalidka waaweyne caruurtu way u sheekeyn jireen xilliyada caweyskii oo kale. arrintaasi maalan carabkoodana way saxaysay, maalan carab jalqaha ayay ilmihii ka biinaysay, waxaana keenaysay inuu ilmihii maskaxdiisii laga shaqaysiiyo oo loo diro exercise iyadoo aanu fasalna aanu joogin, deegaan kale waxbarashana aanu joogin. marka in waalidku ay soo celiyaan, imika way nagu bilaabanaysaa, laakiin wax baynu ka qaban karnaa inay waalidku soo celiyaan sheekadii ilmaha loo sheekeynayey, waqtiga lala qaadanayay, ee gaar ahaan waayeelku. sheekooyinka waan xasuustaa aniguba yaraanteedii sheeko xariiradka. hadda waxaa u maraynayaa qolooyinkan caddaanka laftigooga waxay sameeyaan bed story, sariirta sheekooyinka looga sheekeeya qofka. yes, yacni waxaasi maskaxda aad bay qofka ilmahu markii yaryahay welibana u dhaqaajiya u kiciya, laakiin dadkeena way garan laayeen. haddii aynu kusii socono barnaamijkeena ustaad, waa maxay caqabadaha aad u malaynaysa ugu waaweyn ee haysta iskuullada kejiga ama iskuullada caruurta yaryar loogu talagalay barbaarinta? walaa waxyaaba badan oo imika bilaal oo la xusay waxaa kamid a class sizekii. qofka macalinkii tiro go-an oo kooban unbuu maarayn karaa oo caruurta markay yaryar tahayna maarayntoodu dee qofka weyne istiray way ka adagtay. marka horta class sizeka waa caqabad weyn oo taagan. waxaa kaloo iyana caqabad ah technologygii ama farsamada casriga ahayd oo inaan uga faa'iideysan sidii loo baahnaa. totally uguma faa'iideysano siday ahayd in looga faa'iideysto. mararka qaar iyadaaba laga yaabaa inay caqabad inagu tahay halkanu ka faa'iideyn lahayn in ay iyadu technologyga casriga ahaa oo caqabad inagu yahay. marka labada caqabadood baan isleeyahay waa laxaadkooda ayay leeyihiin. waana qodob yaala. tusaale ahaan imika waxyaabaha bilaal oo la tilmaamaya waxaa kamid ah maalan haddii caruurtii ay habeenkii kusoo jeedaan moobilada, moobilkii wilmi habeenkii kusoo jeeday waa ilmo yar, subaxii markuu yimaado dee horta hore uma kici karo. haddii la kiciyana kalaaskii si wax ku oola fasalkii ilmihii waxba uma baran karo. marka waxaan aan isleeyahay cabdiraxmaan ahaan waxaa kaalintii waalidka ayaa aad in badan maqan ama ay tahay in isbedel lagu sameeyo. waayo kaalintii waalidka iyadoo joogta laga yaabaa in aana waxtar badan aana yeelan. marka muasasadaheenna ama education institutionskeena waxaynu u baahannahay in si waaqiciya la isu weydiiyo caqabadaha maanta ina hor yaalla. maanta sidaynu u fikiraynaa waa inay ka duwanaataa sidaynu u fikiraynay 1980 ama 1990. internetku wuxuu keenay caqabado waaweyn, social media wuxuu keenay caqabado waaweyn, dhanka kalena wuxuu keenay fursado. marka fursadaha oo aynan ka faa'iideysan ayaa caqabad weyn inagu haya waqtigan maanta xaaliga
oo masalan technology waa midada labada af leh afkeedu waxtarka lahaa weli way naga maqan yihiin keedii waxyeelada lahaana waa kanoo waxbarashadeennii iyo nolosheenniiba wuxuu ku yahay caqabad qof waloo wax samaynayaba waxbaa ku dhiirigeliya ama ku kadiya waxaad aasaastay maanta xarun la yidhaahdo Bila Daycare oo arrimaha aad ugu takhasustay saad sheegayso bal xarunta laftigeega waxyaalahay qabato adigoo nooga waramaya at the same time caqabadaha maanta taaganna sidaad u xaliseen marka bilowlow taariikh kooban buu leeyahay Bila Daycare xagga sooyaalka iyo aragtida iyo مثلا visionka waa inaad hesho internet action aanad caadiyan samayn markaad مثلا aad rabto inaad nolosha waxun kusoo kordhiso waxay muuqatay oo Bila Daycare seeskiisu yahay laba wax haddii ilmaha laga helo loona helo waxbarashadiisa iyo korriinkiisu way hagaagayaan waxaa markaa مثلا kowa oo aan anigu cabdiraxmaan ahaan si gaara aan mar walba aaminsanaa iminkana aan aaminsanahay natiijadeeduna ay tahay Bila Daycare iyo waxbarashada carruurteeda guud ahaan in kow technology-ga looga faa'iidaysto si togan مثلا carruurta ilmaha u weyniyo iminka waa مثلا waa 14 jir accountkiisii u horreeyay Khan Academy waxaanu sameeyey 2014 isagoo markaa 3 jir ah isla maalin baanu sameeyey isaga iyo ninka ka yar oo markaa 2 jir ahaa marka kow kaalin firfircoon inuu ku yeesho waalidku tacliinta ubadka iyo laba oo ah in technology-ga looga faa'iidaysto si togan haddii labadaa la isla helo khasab maaha in waalidka waxbarashadiisu ay tahay waxbarasho badan ama weyn ama jaamacadu ka soo baxay khasab maaha waalidku inuu diyaar u yahay inuu isagu qudhiis wax baranayo aaladahan cusub inaga qudhina wax ka baranayna waalid ahaan inagoo wax baranayna aynu ilmihiina aynu wax barayna marka tii baan arkay in ay keeni karto natiijo togan haddii aynu si rasmi ah oo qaab iskuul oo kale ama qaab xarun waxbarasho oo kale haddii aynu u dhigno marka horta seeskiisu waa ka taariikhda مثلا imika 10 sano waqti yar maaha ayuu leeyahay waxbarashadii carruurtana oo ready insha allah waa laga yaabaa inaynu barnaamijka kale aynu isugu nimaadne way ka muuqataa in kaalin firfircoon oo waalidku ku yeesho tacliinta ilmaha iyo aaladahan casriga oo internetkii ugu weyn yahay taabiskii iyo laptopskii iyo wixii la heli karo in ilmihii ay u horseedi karto waxbarasho tayo leh tii baan markaan isku dayay in aynu sii ballaarino oo مثلا aad wadakir fa ina dikra tanfacu lmuminiin waa taa aayaddu ahayd مثلا maxaa qofka ilaahay u yidhi baraaruji مثلا wadakir fa ina dikra tanfacu lmuminiin mu'minkii bay wax taraysaa baraaruji oo ilaahay xasuusi qofkii mu'minka ahaa yani macnaheedu waxa weeye qofku markuu iimaan leeyahay unbaa baraarujintuna wax taraysaa taa macnaheedu waxa weeye marka waalidkii uu intii asaasiyaadkaeed uu hayo ayaa adiguna aada wax ku kordhin kartaa marka xarunta Bila Daycare waxaan ugu talagalnay in waalidkii aynu wax ku kordhino si isaguna uu saameyn togan ugu yeesho tacliintii ubadka marka taa ayaa beeskeedu yahay waqtigan xaaligaana مثلا طبعا iskuulladu way bateen
xarumaha waxbarashadu way bateen, tayo iyo tayo la-aan waxaa laga yaabaa in aan looba eegin. Laakiin anaga waxaan doonaynaa in aynu xoogga saarno tayada ilmaha, oo kana bilaabanaysa in aanu ilmuhu misgarayn ama aanu seegin taxaniinta hore ee sanadada hore. Marka inta ogaalkay imika Bella Daycare waa xarunta kaliya ee qabata ilmo gujira. Anaga hadafkayga waxa weye gujir in la qabto. Gujirkaa markaa su-aashay ahayd matalan maxaa la barayaa, ay noqoto markaa in waalidkii aanu tusno matalan marka dhowr biloodo la hayo, natiijadu markaba ma imanayso. Ilmihii waa gujir uu yaryahay, laakiin in environmentkii uu la qabsado, gidaarkii loogu sawiro, loo shido videoskii ama muuqaaladii wanaagsanaa ee ilmuhu uu wax ka baranayay. Halkanna ay markaa ugu diyaarsan yihiin dhanka kale macallimiintii dhammaantood saad soo aragtay bilaal oo habla ah oo una tababaran inay ilmihii maaweeliyaan, isla markaana maaweeladii ay wax ku baraan. Deetana gradually ilmuhu markaa uu la koro, tacliintii ay noqoto wixii uu indhaha noloshiisa ku kala furay. aad iyo aad laguna ababiyo Aad technology iyo aad. naftigeygii in uu wax ka baranayo. Waayo waxaan arkay iyagoo iPad isticmaalaya Exactly. oo wax ku dhex Aad iyo aad. isticmaalaya. waxay isticmaalayeen oo adiga ka dhawaajiyay Khan Academy. Exactly. Gaar ahaan Khan Academy Kids ayaa imika inta ay yar yihiin ilaa ay gaarayaan grade 2 waxa ay wax ku baranayaan Khan Academy Kids. Khan maxay tahay, sidee manhaj ahaan bilo uu u isticmaalaa Khan oo kale? Khan Academy waxa weeye waxa asaasay nin Maraykana oo Salman Khan la yidhaa, laakiin asalkiisu kasoo jeeda Indian subcontinentka. Aabihiina ahaa Bengali, hooyadiina Indian, laakiin Maraykan oo Maraykan ku dhashay oo ku koray wax ku bartay. Ayaa asaaskeeda markii ugu horreysay lahaa. Marka waxay kasoo bilaabatay tusaale ahaan in uu markii hore wuxuu Salman Khan MIT Harvard buu isku maray oo nin si fiican wax u bartay. Deetana wuxuu mararka ka mid abaa inan yar oo ay isaga ama habrwadaag noqonayaan ama ilma abti ama ilma adeer, waxyaabaha af Soomaaligu kaga duwan yahay waa iyagu kasanun bay dhahaan Ingiriisiga, ama habaryarta ha dhasho ama eedada ha dhasho ama abtiga ha dhalo, waa kasanun. In adeertkii habrwadaagii in abtigii waa isku. Marka inan yaroo kasankiisa Naadiya la yidhaa buu markii hore ka caawin jiray bahalkii la odhan jiray Yahoo Messengerka. YouTube-ka soo baxay, niman ay asxaab yihiin baa markaa u soo jeediyey inuu YouTube-ka uu ku duubo muuqaalkii isagoo inantii caawinaya, masalan gaar ahaan xisaabtii oo kale ka caawinaya. Tii baa markaa popular noqotay. Dad badan oo wuxuu arkay kala duwan oo horta qaar ay autistic yihiinba oo waalidka ay leeyihiin wallahi waadna caawisay. Marka beri dambe ayaa Naadiye iyo caruurta ay ehelka ahaayeen buu mar dambe la kulmayaa. Deetana wax cajiib ah ayuu kala kulmay. Waxay yidhaaheen matalan markuu caawinayay oo xisaabtii ka caawinayay, waxay yidhaaheen markaad YouTube-ka ku jirto eedna caawinayso eed ka wanaagsan tahay imika physically markaad matalan foolka fool markaad wax noogu dhigayso. Deetana uu isweydiiyo aad buu la yaabay. Deetana technology-gu waa waxyaabaha uu soo kordhiyay ku jira. Halkan waad ka daalaysaa. Matalan qofkii bini'aadanka matalan imika haddii aad xisaab iga caawinayso bilaal ahaan, markaad igu celiso dee waad daalaysaa iyo dee bini'aadan baa tahay. Laakiin technology-gii codkii aad duubtay iyo muuqaalkii aad duubtay iyo casharkii aad duubtay, dee qofku intaasoo jeer ayuu ilmihii ku celeeshanayaa. Marka waxay dhahaan haddaanu ku yara fahmayno waanu yara joojinaa, note-kaanu qaadanaa, deetana haddana dib baan u shidnaa, casharkii baa dhammaada, haddana dib bay ugu soo celiyaan. Laakiin dee fursadda kama helayaan qofkii bini'aadanka markuu kula taagan yahay. Marka macnuhu imika technology-gii
iyo macallinkii qofka ahaa ee bini-aadanka ahaa way isdhamaystirayaan. marka technologygii baa waxaynu uga faa'iidaysanaynaa in tacabkii qofka bini-aadankaana meesha ka saaro. sidoo kale ma lihin 100% macallinkii waa laga maarmayaa, laakiin waxaynu leenahay oo bilo daycare uu ka imanaya technologygii iyo macallinkii way isdhamaystirayaan. oo matalan adiga soo arkay matalan taabiska markay isticmaalayaan maantoo dhan bay kusoo celceshanayaan. macallinkii uu kor taagan yahay oo uu ku ilaalinayaa, uu ku celceshanaya. hadduu macallinkan dul taagan oo ilmuhu yidhaaho maantoo dhan iigu celceli, waxaa laga yaabaa inaanu uu ka daalayaa. dhanka kale markaad eegtana elementkii embarrassmentka ama khajilkii ayaa meesha ka baxay. oo matalan ilmuhu marka uu adiga interaction uu kula sameynayo ee uu yar yahay, waxaa laga yaabaa khaladka oo kale inuu ka yara baqo oo magaranaysaa su-aal inuu ku weydiiyo uu ka yaraa xishoodo, dib usoo yara istaago isagoo isleh wallahi khaladkaad samaysay bilaayo ceeb ama cay lagaaga dhigaa. tiiba technologygu meesha ka saaraya. oo maanta o dhan hadduu khaldayo ama uu ku celinayo, dee ilmihii combyuutarku dee qof maaha, ama taabku qof maaha, ama ku qoslaya ama dareen isagoo ka qaadanaya. marka ilmihii waxaa kalsoonidiisii ayaa technologygu dhan kale uu ka dhisi karaa. oo matalan gaabkii ku jiray waxbarashadiisa uu macallinkana kala kharjirayay ayaa halkan lagu dhiiri gelinayaa inuu ilmihii magaranaysaa uu awdo, yani gaabkaa ku bannaan uu awdo. waxbarashaduna waa lakabyada isa saaran sida labankaa iminka gidaarkaa ka dhisan oo kale. haddii xagga hoose matalan ilmihii haddii conceptiska qaar matalan ay ahayd inuu kusoo dhigto grade 2 macluumaad uu grade 2 ahayd inuu ku barto, haddii uu ilaabo ama uu magaranaysaa uu kasoo booday oo si uun ay halkaa uu gaab ugaga jiro, grade 4 markuu maraya waxaa laga yaabaa in macallinkii qofkii bini-aadanka ahaa inaanu dib ugu noqon. laakiin ilmihii hadduu rabo inuu isa soo kabo, technologyga grade 2gii akhana academigu gelaya, uu waktiga dheeraadka uu hayo ayuu wixii uu ka soo booday oo dhan, ama intii magaranaysaayey meelihii matalan haddii fractionska isagoo maraya multiplication fractions ama isku dhufashadii matalan jajabtoo kale, haddii multiplicationkii caadiga ahaa ee whole numberska uu isku dhufanayay haddii uu gaab kaga jiro, dee wuxuu tagayaa unitkii wuu ku dhufanayaa, videogii buu daawanayaa, exerciseki buu ka shaqaynayaa. yani tacliintii hore ee uu ka soo booday, alifkii uu ka soo booday halkuu albaqara ka qaban lahaa, isagoo matalan suuratu maryam ama suuratulkaaf maraya ayuu ku noqonayaa ayoo magaranaysaay waa back and forth. yani ilmihii marka technologygu faa'iido badan ayuu leeyahay. bila daycarena waad iga arkay isticmaalka technologyga. marka technologyga waxaan rabnaa in aanu uga faa'iidaysano oonaan isku koobin, laakiin waana khan academy waxyaabaha kale ku wanaagsan bila waxaa kamid waa bilaalo waxaa kamid ah waa free. wax alla wax lacagoo lagu charge garaynaya ma jirto. artificial intelligence-kiina imika uu leeyahay AI-gii oo aan waxba kuu sheegayn laakiin wax ku baraya. marka insha allah way inkastoo weli dal ahaan aynu xadidaadi ay jirto, laakiin qaabab looga faa'iidaysan karo ayaa jira. marka technologyguna wuxuu u yahay yani waa arrin yani dhankayaga lama taabtaana, oo macnaheedu yahay macallinku wuxuu ku khasban yahay in waa standardkaanu dhignay, macallinku waa inuu isticmaalo taabkii khan academy si ilmihii uu wax u baro. marka khan academy guud ahaan markaad eegto ka kariskiisa iyo ka kale ee matalan second grade wixii ka sarreeya, waxaa
oo ku base garaysan yahay common core state standards ama waa manhajka aynu si kale aynu u dhignay manhajka maraykanka ayuu dhankaa kaga exactly uu ku salaysan yahay dhammaantii. marka maalan xisaab marka la dhiganayo dee manhajka somaliland iyo mid indiana iyo mid kenyana iyo conceptsku more or less waa isku mid, wixii lagu dhiganayay waa isku mid. marka anigu xoogga waxaanu saaraynaa tusaale ahaan in ilmihii uu waxay ahayd inuu barto maalan fractions baa la rabaa in la baro, fractionska siday yihiin waa inuu dhigtaa. conceptska maalan ilmo grade 4 ay tahay inuu hayo waa inuu helaa. markaa tiibuu markaa fududaynayaa technologygu, iyadiibuu kor u qaadayaa, iyadiibuu markaa macalinkii uu kabayaa, macalinkii technologygu kabayaa. dhanka kale markaad eegto ardaygii ayuu kabayaa. dhan saddexaad markaad eegtana bilaalow waalidkii ayuu woori badan. iminka dee waalidka maanta nool ee ilmihiisa iskuul u diray inta warwar ku furan waad ogtay. dhinaca fiigii baa kaga furan, dhinac waxaa kaga furan talow waatan caruurtii gelinkii dambe loo qabanayo, macalimiintii kabayey. haddii markaa maalan technologyga aynu ka faa'iidaysano umaynan baahaneen, waynu yareyn karnaa magaranaysaa kharashaadka ay waalidku gelayaan, wooriga faraha badan iyo warwarka waalidka ku furanna hoos baynu u dhigi karnaa. science-ka geli. markaynu isku soo duubno bilaalow, halka biyodhaca iyo kamakacdooda waxa weeye in aynu helno macalin tayo leh iyo technology wanaagsan si aynu ilmihii aynu waxbarasho tayo leh aynu u siino. marka hadafkaygu waa kaa, waxaanan isleeyahay waa hadaf u qalma in waqti iyo maalba la geliyo. iminka dhibta ugu badan ee hooyooyinka haysta marka caruurtooda hayaan waxa weeyaan in caruurtii lagu idhaahdo telefoonka hoo, caruurtii telefoonkii ku dhego oo la iskaga jeediyo. laakiin simply waxay awoodayaan saaad sheegayso in Khan Academy Kids uu soo dejiyo applicationka telefoon yar ama iPad ama something u gaara iyaga uu soo iibiyo, ka uu mar kasta u dhiibo intuu u dhiibayo media iyo wax maalayaaniya. so wuxuu baranayaaba early age ilaa xad isagoo aad iyo aad. waxyaalahaas marka halkuu ilmuhu game ka geli lahaa ama maalan youtube-ka ama guud ahaan internetku waa sidaa magaalada Hargeysa, masaajidkii iyo makhaayadii iyo wixii wax kasta aad ka helayso. marka dhanka wanaagsan aynu ka gelinaynaa. makhaayadna waad fadhiisan kartaa, waqtigu waa kaaga lumi karaa, masaajidna waad geli kartaa. soo gelinkii hore haddii ay bila daycare imaadaan caruurtii halka iskuul uga baahnaan lahaayeen gelinkii dambe Khan Academy baa kaga Khan Academy oo la barayaa exactly. aad iyo aad. marka ilmihii account baa loo sameynayaa, accountkii isla mobilkii waalidka aynu ku dhiirigelinaa in waalidka uu Khan Academy ku shubto, marka ilmihii uu u dhiibo. marka Khan Academy wuxuu fursad kuu siinayaa inaad ilmihii assignmentkii aad u geliso. markaad waalidkaa tiraa assignmentka ayaa ugu jira ee assignmentka ha ka shaqeeyo. dhanka youtube-ka markaad eegtano iyagana waxaa jira channels wanaagsan oo waalidku ay ilmihii uga faa'iideyn karaan iyagoo iskaga jeedinaya at the same time ku jeedinaya wax faa'iido u leh ilmihii oo aan waqti ka ridayn oo maskaxdiisii korinaya oo ilmihii wax ka baranayo. marka haddii ilmaha loo dhiibinoo la iskaga jeediyo waxaa laga yaabaa inuu badweyn ilmihii qaado, laakiin waa loo xadidayaa. marka masalan waxaa la odhanayaa channelkaa gaara ilmihii daawo oo faa'iidadii laga gaarayo. abkii Khan Academy Kids marka loogu shubanaa wuxuu ilmihii assignmentkiibuu ka shaqeynayaa, wuxuu ka faa'iidayaa in aaladii uu la iskaga jeediyey ilmaha ee lagu mashquuliyey in ay mashquulkii uu noqdo wax midho wanaagsani ka dhasho. caqabad baa markasta jirta qof kasta wax samayn raba amba wax cusub ummadii baraya.
technology-ga aad rabtaan inaad sida wanaagsan u bartaan dadku inay uga faa'iidaystaan ee caruurta laftigooga aad ku bilaabaysaan da-dii ugu horeysayba isagoo inan maanta una qaan gaadhin amba xilli aynu sida caadiga u geysan jirnay. marka caqabadaha idinkaga imid maxay yihiin arrimaha? caqabadaha koobaad masalan su-aasha lagu weydiinaya waxa weeye waalid badani uu ku weydiinaya bilaalow war ilmaha maxaa loo dhigayaa, mugu jira maxaa loo barayaa? marka arrintu farsamo maaha, dhaqaalena maaha, waxa weeye dadkeennii baa weli waxay aaminsan yihiin in badan oo ka mid a majority-gu waxaynu aaminsannahay in ilmo yar aan waxba la bari karin, in gujir aan waxba la bari karin. marka horta beliefkaas ayaa caqabada. marka bilaalow caqabadda ugu weyn waxa weeye waalidkiioo tusaale ahaan aan hubin waxaad sheegaysa iyo technology-gani inuu ilmihii wax tarayo. marka horta beliefka wax kasta ka bilaaba inama alacmaalu binniyaat soo maa. waayo mana weyse qaadan kartid mana tukan kartid haddii aanay niyaddii aanay joogin oo wixii ay qabanaysay aanay kalsooni ku qabin inuu yahay wixii saxda ahaa. marka waalid badan waxaa caqabad ah in ay horta ku qancaan in qaabkan aad ilmaha wax u barayso adeegsigan technology-ga inay midho ka dhalanayaan. marka horta kalsoonidaasaa imaka noogu badan oo ay tahay in aanu dhisno. waxaa kaloo iyana dhanka kale inta badan waalidka ku dhaca degdegsimo. matalan ilmihii 4 bilood ama 3 bilood buu imanayay, mararka qaar waxay waalidkii doonayaan in ilmihii uu markaba uu wax akhriyo, markaba uu hadlo, yani in wixii tacliintii iyo wixii ilmaha la barayay in lagu shubayo. marka natiijo degdega hadday arki waayaan oo masalan 4 bilood ama 6 bilood ay ilmihii soo socday haddana ay ka waayaan iyagu wixii ay filayaan. maaha ilmaha yar waxay tahay inuu barto ama uu qaadi karo. waxaa laga yaabaa inay inta badan dhacda in ay ilmihii ama la baxaan yidhahaan iskuul kaleanu geynaynaa. marka iskuulladan la isku bedbedelayo iyada qudheedu waxa weeye waa caqabad. marka farsamooyinka yar iyagu masalan internetka mararka qaar iska dhawna iyagu ma sii weyna. waxa kaloo iyana bilaalow aada u adag helitaanka macalin taya leh oo ilmihii aad kaga gami karto. waqti bay qaadataa. masalan macalimiinta nala jooga waa inaad time aad ku bixisaa inaad hesho macalinkii ku habboonaa ilmaha aad ku kalsoonaan lahayd inuu wax u barayo. marka taasina iyana infact waa caqabad. hayntii iyo iyada qudheedu in lagu far adaygaa iyana waxa weeyaan iyana culays kale ayaa ka yimaada. markaad aada soo koobto waxaan filayaa wax badan duruufahaynu sheegayno ka tari kara dabcan isbeddel ku yimaada waxyaabaha aynu ka fili karno ilmihii inuu qabto. soomaalidana dhaqan baa jira ay inta badan ay iska aaminsan yihiin oo ah ay ku odhanayaan hadduu rag gaar ahaan inamadoo kale nin ragii meenunbu ka soo dhici, yani which means waa hands off. ilmihii waalidkii ama dadkii kale in faraha lagala baxo la yidhaahuun ilmihii isagaa iswadihaa ama aan markaa baraarug la-aan ayaa jirta la xidhiidha technology-ga iyo kaalinta uu ku leeyahay maanta in uu soo saaro tacliin ilmo leh tacliin taya leh. marka arrintaasi waxaan is odhan karaa waa caqabad ugu weyn. wixii kale caqabadaha kale farsamo iyagu bilaalow
bas ridno waa lala tacaali karaa, waa lala tacaali karaa, laakiin mindsetka ayaa muhiim inuu isbedelo. marka waxaan leenahay uun waalidkii ha samraan markay caruurtoodan keenaan, markaas waxaa la barayaa waxa weeyaan habit, waa caado. ilmihii yaraa isagoo ugu horeeya lala barayo in bahalkan uu si fiican uga faa'iidaysto, la qabsashiinayo waxbarashadii. waynu ognahay inuu 3 4 ku hadli doono, uu waxyaalo badan ku qaban doono. waxaana macquula inuu 2ba uu ku noqdo wax cajiiba. marka ha loo samroon baa la leeyahay. sabirku waa muhiim. eg nolosha caadiyan guud ahaan qofku haddii sabirkana dee diinteenu in badan ayayna fartay. sabirku absolutely waa daruuri. expectationkaagu ama filashadaadu haddii unrealistic tahay, matalan bilaal baan intaan la booday baa wax weyn baan ka filayaa, dee waxaa laga yaabaa in expectationkaasi anuu igu jiraa, adigu waxaad shaqo ood ku leedahay ma jirto. marka expectationkaygu marba kugu cabirayaa, marna samadaas baan ku geynayaa, marna dhulkan ku dhigayaa. marka expectationku inuu mid dabcan waaqiciya noqdo, xilkasnimana ay ku dheehan tahay. waalidkuna mar kasta ay kaalinta ay ku leeyihiin tacliinta ubadka waana ku baraarugsanaadaan. dabcan waa xaq bay u leeyihiin, waa inay la socdaan. matalan ilmaha markay keenaan waa inay la socdaan ilmihii miyuu wax baranayaa, wax ma faa'iidayaa. isla xisaabtanku nolosha mar kasta waa qayb muhiima oo ka mid ah. but on the other hand waa in dee ay jirtaa iyana sabirkii oo tallaabada matalan aan qaadayo waa in aanu yani common ground ama common understanding ama faham guud oo isku mid a waa inaanu ka leenahay niyo waalidku in ilmihii ugu yaraan jihadii saxsaneed uu hayo. yani ilmaha qudhiisu wuu baarbaara oo bilaadan robot maaha, wuu baarbaaraya ilmuhu. markuu yaro beero waa in lagu soo duwo, waa inaan la niyad jabin, lagu soo duwan jidka wuu ka yaro dhacaya, waa in lagu soo duwo. haddii matalan adigoo exercise siiyey ama hawl u diray oo shaqo qabanaya, haddaad aragto isagoo halkan yaro warwareegaya, maaha inaad ku qayliso, waanaad qunyaro intaad soo qabato gacantaad tidhaahaa shaqa halkan kuu taallay. markaa baraarujintaa faraha badani it pays off. yani aakhirka natiijadeedu way soo baxaysaa, midhaheeda waa la goosanayaa. laakiin haddii walakinakum qowmun tastacjiluun waa kii xadiidka ahaa, haddii laakiin aynu degdegno waxa weeyaan wax badan baynu beenaynaa. markaa waalid iyo muasasaadka tacliimiga iyo cid kasta oo xil saaran yahay waa inaynu sabirka aynu mar kasta iyana aynu ogaana. dhammaadkii baynu iskaga sii dhownahay. su-aashaan raba ina ku weydiiyo waxa weeyaan, manhajka waxaad doorateen english intan arke, maxaad english u doorateen? markana waxa aynu ingiriisiga u dooranay, maanta haddaynu dalkeena aynu aagno, markuu ilmuhu secondary school soo gaadho, jaamacaduu yahay, xitaa dugsigii hoose dhexe, wixii wax loogu dhigay ilmuhu waa ingiriisi. jaamacad buu soo gelayaa, manhajka gebigiisu maanta jaamacadaheenna haddaad tagto manhajka wax lagu dhiganaya waa ingiriisi. dhanka kale markaad ka eegto, ilmihii markii uu yaraa ee uu waxbaranayey ee uu yaraa, luqadii xoogga looma saarin ingiriisiga. markuu soo baxay ee uu matalan heer jaamacadeed soo gaadhay, iyadii baa la rabaa inuu wax ku dhigto. marka contradiction baa ku jira. contradictionka markaa si aynu meesha uga saarno, waxaanu isla garanay iyadoo aan soomaaligii laga tegeyn oo carabigii aan laga tegeyn. matalan biladhaykeena waad kusoo aragtay, labadaba luqad ahaan ayaa loo baraa. oo matalan qur-aankii oo ilmihii dhiganaya ayaa sidoo kale waxaynu xoogga saarnay in tacliintii englishka ku qornayd in sida ay tahay ilmuhu uu barto oo uu la koro. marka taa macnaheedu maaha inihii kale
waynu dayacnaa. laakiin waxa weeye mar haddii xitaa markuu jaamacadda ka soo baxo maalan 22 jir 23 jir markuu kusoo qalin jabiyo ardaygii, waxa ugu badanee maanta somaliland la weydiinaya waxa weeyaan ingiriisiga saa isku tihiin. okay, englishka marka mar haddii uu yahay waxaynu u baahannahay oo daruuriya oo aqoon badanina ay nagaga xidhan tahay in aynu isaga marka aynu ilmihii aynu wax ku barno, marka luqadii uu ka dhismo af ingiriisi fiican uu ilmihii early on uu barto, isla markaana aanay noqon luqad uu marka uu wax akhriyay uu turjunto. marka luqad ay tahay inuu iyadii ku fakero, wax ku curiyo, wax ku qoro, wax ku akhriyo, wax ku fahmo. marka taasina waxay ka bilaabanaysaa markuu ilmuhu uu yar yahay. maalan nin macalin ahaayo imika wada qudheeda weli waa macalin ayaa beri wuxuu iga sheekeeyey sheeko axmed kiise cismaan saban isagoo 3 jira may 3 jir mu ahayne bulaxaar ka dhigta grade 3 1970skii ayaa warqad af ingiriisi ayuu qoray maalan islaan waalid ahaydoo inankeedu joogay berigaa England joogay. marka warqad yarada ingiriisiga ugu qoray, lacagtii loogu soo diray ayuu muddo in yaroo ay ka siisay ayuu muddo nusaace isticmaalay. weli macallimiinta af ingiriisiga dhigta ayuu ka mid yahay. anigana ingiriisiga uga dhigay, halkanna waan ka salaamaya. marka waad garan kartaa waxbarashadu waa waxa weeye annaga marka imika laga eego dhanka bila daycare 8 jir intuu ilmuhu ka yar yahay waa inuu helaa waxbarasho tayo leh. ingiriiska waxaan xooga u saaraynaa baahida ku jirta. englishkana uu noqdo maalan wuxuu ilmuhu si fiican oo qurux badan ugu hadlayo, u akhriyayo, wax ugu qorayo, si hadhow uu u soo baxo ilmo israacsan oo aan kala harsanayn. ugu dambeyntii talada aad siinayso waalidka waa maxay cabdiraxmaan? waalidka waxaan siinayaa dabcan hadalkeenuna mixwarkiisu uu ahaa malaf dhabartiisu ay ahaydee in ay xil gaara ay mar walba iska saaraan, inay iyagu kaalin firfircoon ay ka ciyaaraan tacliinta ubadka. taasi waa iska waana guude. technologygana ay fiiro gaara u yeeshaan, oy isticmaalaan, iyagu ay isku dayaan inay ilmihii waxna ku baraan, iyagu qudhooduna ay bartaan sida loo isticmaalayo. khan academy baynu tusaale soo qaadanay. maanta waa aalada bilaashka bilaa lacagta waalid kasta wuu samaysan karaa. waalid kasta ilmihiisa wax uu ku bari karaa. marka in xil gaara aynu dhammaanteen waalid ahaan aynu iska saarno. technologyguna uu noqdo wax mar kasta la socda tacliinteena. tacliintii taqliidiga ahayd textbookgii kama tegayno. ilmuhu wuu dhiganayaa buuggii daabacadiisii akhriskiisii lagama tegayo. macno gaara ku jira pageska aad rogayso, laakiin at the same time in technologygii aynu isagana u adeegsano si togan oo wax ku oola. natiijadana way arki doonaan waalidka trygareeyaaye ama isku dayaaye adeegsiga technologygu wax badan ayuu ka tarayaa tayeenta tacliinta. marka labadaasaan ayaan usoo jeedin lahaa. kaalin firfircoon ku yeeshaan tacliinta ubadka iyo inay technologyga u adeegsadaan si togan, si kor loogu qaado tayada tacliinta ay ubadkeenu helayaan. dee ilaahayna xaq ahayna waafajiyo.
aamiin aamiin aad baad umahadsan tahay idinkuna aad baad umahadsantihiin sida quruxda badan ead u la socoteen xalqadan haddii aad halkan soo gaadheen waalid haddaad tahay ood caruur leedahay waxaan kaa codsanayaa inaad ila soo eegteed macluumaadka aanu ku siinayno iyo goobta aanu ku tilmaamnay ee bila daycare la idhaahdo idinkuna si faafiya muuqaalka la wadaag saaxiibka walaalka walaasha aad baan idin salaamaya